ninkan idin muuqanaya waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Itoobiya meel public ah ayuu dadkiisa kala hadlayaa waxa uuna ku hadlayaa hadal bila ka hor Soomaalidu ay madax iyo shacab ka banaan baxayeen kana dagaalamayeen maantana dadku ay u arkaan mid caadi ah oo aysan jirin cid ka falcelinaysa dawladda iyo shacabba haddaba muxuu yahay hadalku ku hadlay Burhanu Jula ka oo ka hor imaanaya hadalkii wasiiru dawladda Soomaaliya oo maalmo ka hor shacabka Soomaaliyeed u sheegay haddii ay tahay markii kugu horeysay na soo booqata fadlan page-ka noo follow garee haddii aad YouTube-ka naga daawanaysana subscribe noo saar aad baa u maasantiin waa tahay maalmihii la soo dhaafay waxaynu ogeynay dhamaanteen in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu yimid magaalada Muqdisho si diirana loogu soo dhaweeyay 4 saacadoodna uu joogay magaalada kadibna uu laabtay dalkiisa safarka ra'iisul wasaaraha oo daarana dhamaystirkii iyo siyaanba qaadidii heshiiskii Ankara ee Abiy Ahmed iyo Xasan Sheikh u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya markii uu Addis Ababa ku laabtay inta badan dadka Itoobiyaanka waa ay dabaaldegayeen social media-na waxa ay ku baahinayeen in dalkooda uu yeeshay mustaqbal ifaya oo ay heleen bad ay iyaga leeyihiin taa oo ay ku taamayeen kumanaan sana riyadaana maanta ay u hergashay dalkooda iyo dadkooduba wasiiru dawlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Ali Balcad oo la wareystay waxa uu sheegay in Itoobiya kala heshiiyeen ama ay siiyeen ama ay siinayaan dekado sidoo kale wuxuu sheegay dekadaha in laga siinaya badweynta Hindiya ee aysan ku jirin badda cas ee MMU-ga Itoobiya ay la gaartay madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi hadalka uu ku hadlay Burhanu Jula waxa uu si cad kaga hor imaanaya hadalkii uu ku hadlay Ali Balcad ka oo ahaa in badweynta Hindiya dekad laga siinayo Itoobiya Burhanu Jula oo meel public ah dadkiisa kaga qudbaynaya ayaa wuxuu yiri waqti yar ama xilli yar baa kaga harsan Itoobiya inay noqoto wadamada ku teedsan ama leh badda cas ama Red Sea haddaba generaalkani waxa uu dadkiisa Itoobiyaanka u cadeeyay in Itoobiya ay yeelanayso ama waxa weeyaba la siiyay badda cas waliba waxa uu sheegay in si nabad ay ku gaarayaan halka oo waxa weeye badda cas haatan wixii ka dambeeyay ay ka mid yihiin wadamada qismiga iyo qaybta u leh badda cas markaad milicsato ama aad dib u eegto hadalka generaalkani sidoo kalena aad eegto hadalka dawladda Soomaaliya waa wax aad u kala fog aadna u kala tagsan waxa ku muuqanaysa Itoobiya in ay wali ku dhagan tahay qorshaheedana uu yahay MMU-gu ay la gashay Muuse Biixi halka ay doonaysana ay tahay xeebaha Saylac iyo Lughaya ee aysan doonaynin badweynta Hindiya halka dawladda Soomaaliya ay sheegayso in aysan miiska saarnayn qorshahana uusan ku jirin badda cas ee Itoobiya meelaha dekadaha laga siinaya ay tahay badweynta Hindiya haddaba halka markay joogta markaad arrinkan eegto oo si qoto dheer aad u fiiriso saddex qodob ayaa mid ku soo baxaya waa qodobka koowaad waxa ku soo baxaya in dawladda Soomaaliya waxay shacabka u sheegayso iyo waxay Itoobiya heshiiska kula gashay ay kala duwan yihiin oo waxa weeye dadku ay been u sheegayaan oo heshiiskii ay la galeen Itoobiya ay ka qarinayaan shacabkooda waa qodobka labaad waxa ku soo baxaya in Itoobiya ay doonayso inay kala disho ummadda Soomaaliyeed marna ay Hargeysa la galayso heshiis deetana ay kaga baxayso dana waxa weeye Muqdisho ay heshiis la galayso oo ay kaga baxayso oo ay doonayso nidaam nooca ah oo ay dadka Soomaaliyeed ay ku kala qaybiso qodobka saddexaad waxa ku soo baxaya in heshiiskii u dhaxeeyay Xasan iyo Abiy uu burburay oo Abiy uu doonayo inuu ku laabto MMU-gii uu la galay Somaliland saddexda qodob ayaa mid ku soo ifayso waa inay Soomaaliya run sheegayso oo Itoobiya ay wax arqaladeynayso iyo in Itoobiya ay run sheegayso oo Soomaaliya ay shacabkeeda ka qarinayso waxa jira ama waxa weeye in Itoobiya lug saddexaad u laaban tahay oo ay qas kale iyo dhibaato kale doonayso waa tahay haddaba xaalkan iyo arrinkani sanad ka hor waxa uu ahaa wax lama taabtaan oo laga mahadlaan oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ka dagaalamayaan kana gilgilinayaan kana geylamayaan
shacab iyo waxa weeye dawladba ay inta badan ka hadlayaan oo ay ka jawaabo bixinayaan hadallada ka soo yeeraya Itoobiya kadib markii uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya qaatay go'aan qaraska tuurnimo ah taa oo uu doonayay inuu dalkiisa bad ku helo. maanta waxaynu arkaynaa in arrinkii ay noqotay wax iska caadi ah oo waxa weeye aysan jirin dad badan oo ka falcelinaya oo loo arkaya wax iska caadi ah oo laga wada hadli karaya halka shalay loo arkayay wax aan laga wada hadlaynin iyo qad cas in ay tahay. adigu sidee bay kula muuqataa sargaalkani hadalkiisa iyo hadalka dawladda federaalka Soomaaliya ee iskhilaafsan maxayse kula tahay inay ku dambeyn doonto arrinkani?